naag haweenkii wanaagsanaaye hore kamida ayaa gabar ayadu ay dhashay bay galbinaysay markay gurigeedii u galbinaysay waxay tiri gabadheedii bay la hadlaysay waxay tiri hooyo gurigii aad ku soo kortay waad ka tagtay wad inta kula soo ekaato taqaanay guri aad aqoonin iyo qof saaxiib oo aad garanayno hadda isugu kiin hor aad u tagi doonta fakuni lahu ardan yakun laka samaa qofka aad markaad u tagto kuni lahu ardan dhul u noqo dhulka isu dhig yakun laka samaa samu ku noqonaya adigana wixii xuno dhanbu ka xijaabaya fakuni lahu mihadan gogol u noqo yakun laka imaadan tiir buu ku noqon hadaa ninkaaga gogol u noqoto asaguna tiir buu ku noqon oo tiirku waa cuskiinade wakuni lahu ammatan yakun laka abdan ninkaaga adoon u noqo adoon buu ku noqonayaa bay ku tag hada qofka xorta wanaaga yaani iyo ihsaanka lagu adoonsaday qofka haduu ihsaan ku sameeyo gabar yaani wanaagsan oo raaliya oo baariyada oo wax walba hagaajinaysa hadaa hesho adigana adoon baad u noqon wax alla waxay raali ka tahay inaad sameeyso baad jeceshay maadaama adiga ku raali gelis marka kuni law amma adoon u noqo yakun laka abdan adoon buu ku noqonayaa ninkaagu wahfadi anfahu wa sam'ahu waxay tiri waxaad ilaalisaa wahfadi anfa sankiisa ilaali wa sam'ahu maqalkiisana ilaali wa basarahu aragiisana ilaali bit sankiisa ilaali maxay tahay fala yashum minka illa tiban wax udgoon moogi wax kale yusaka urin de guri nadiif ay adigoo nadaafad leh iyo wax wanaagsan baa la dooniyay ninka haduu yaani meel aan habooneyn uu soo galo meesha hada maril ma yaalo wa sam'ahu maqalkiisa ilaali fala yasma'u minka illa hasana wax wanaagsan moogi wax kale yusaka maqal hadal xun iska ilaali oo maqalkiisana ilaali way wax yuna ka maqlin ishiisana ilaali oo wala yara minka illa jamiilan wax qurux badan moogi wax kale yusaka ku arka gabar tarbiyaysan oo guriga hooyadeed ba sida looga soo waday maxaad ma leeyahay haday ku timaado tiyeelo khayrka ay dad ku liibaani lahayd inuu way marka xuquuqda iyo waajibaadka yaani dumarkii ragga lagu leeyahay gudashadooda Allah waafajiyo ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته